السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada oo toddobaadkan aanu diiradda ku saari doono haddii ilaahay yiraahdo fiidiyoogii hadal haynta dhaliyey ee bulshadu isla wadaagaysay maalmihii la soo dhaafay ee ku saabsanaa hadal laga soo xigtay ama uu yiri daaciga weyn ee Soomaaliyeed Sheekh Cismaan Usuuli. hadalkaas ayaa waxa uu dhacayay maadaama fiidiyooga dheeraa inta la soo gooyay ee bulshada la wadaagay ayaa wuxuu dhacay ninku xaaskiisa uu kufsan karaa hadday xumadu qaado waxna looma haysto. arrintaas ayaanu ku eegi doonaa barnaamijka qaybta dambe, balse marka hore waxaanu eegaynaa waa maxay kufsi markii nin iyo xaaskiisa isqaba ay yihiin iyo markii ay tahay gabar halkaa maraysa nin maagay. farqiga u dhexeeya waa maxay? waxaanu ognahay qur-aanka kariimka inuu gabdhaha iyo ragga iyo dumarkoodu marka uu akhlaaqiyaadka iyo sida la iskula dhaqmo uu ka hadlay inuu ilaahay yidhi wacaashiruhunna bilmacruuf, wanaag iyo sharaf iyo karaamo kula dhaqmo. haddaba sariirta kala dhaco xooga xagee ayay iska qabanaysaa? arrimahaas ayaanu dhex jawaaxi doonaa. Sheekh Cismaan Usuuli ayaa barnaamijka marti igu ah, daaci Soomaaliyeed, waqtigiisa aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa. jazaaka allahu khayr waaxsan allahu ilayka wakahara allahu amthaalaka ya sheekh. soo dhawow. وأنا بارك الله فيك أخي عبد الحفيظ، جزاكم الله خير. ويا شيخ عثمان intaanan u guda gelinin su-aasha dadka hadalhaynta faraha badan dhalisay ee bulshada in badan oo ka midana oo fiidiyoogii wada daawatay adiga ay kugu taageeraysay, waxaad ka hadlaysay shakhsiyaad kalena markaas ay u arkeen fiidiyooga koobana la tusay inay arrintaad ku hadashay gaf iyo meelka dhacay ku tahay gabadha Soomaaliyeed ayna dhiiri gelinayso markaas rag marqaansano inay markaaba la marin habaabaan. marka hore bal diinta islaamka iyo fiqiga wuxuu ka qabo arrintan kufsiga ku saabsan noo qiix adoo mahadsan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. أخي عبد الحفيظ مركور هذا وما حسنتها جزاكم الله خير. إن البياني وحقه ونكسيه المسألة وصول الله بتي دورجر أيا ورئيس سؤال اللي يجوديه قار قاس يجوديه قار ورئيس أهان ودعبة. مسألة لما أرن وين ذاتك إكلا قارن كران مركورة. هدي لي له كفس محلي لها شرع الإسلام كواقع حتى كفسية. دولة ظهر القلبات كان وسيء ويقانان وقانون كوذي يوحي استعمالان. مركا أنا مركا الدين تاع كهذا لأنه كفسي مركي لقيح معناه اسمها وبنايها معها. لكن كفس محل لو مقعبة محيا لو حني لها قواعد وشريعة كل سنة وحيتها الحكم على شيء فرع عن تصوره. مرك أنت وشيء ما بنايه أنت الحين إنه مرك الله تصوره وتصوير لك بحيو أياه. ولذلك باب الخصب فقه ونقص أرورت دورجر وان شيء اختصاب كان هذا ما دام الشرف كو تعلقه أي تاع مرك سيد هذا غير قلبيتك أي مرك كهلا يعني كفسية وحي كسر دران حوق قف لا بقف وحوق اسكو استعمال شيء oo xagga gogasha iskugu isticmaashay ayay ka soo qaadaan. annaga laakiin sharciga islaamka markasta kufsiga waxaan yiraahdaa wax aad xaq aad ku lahayn oo aad xoogtay. ama mas'ala haddii la isweydiiyo ninka xaaskiisa ma xoogi karaa, sharciga islaamka ma xoogi karo, ma banaano oo xukunku waa cad yahay. laakiin dembi kaloo leeyahay oo ninkaas waa nin sayi, nin akhlaaq xun weeye. وهذا آيات كدواجس وعاشرون بالمعروف آيات خلافي بل إسلام كمسألة والله بدأ إسقبوا حكت المامر نرئس هو جناي وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن وكت المامر بل شريعة الإسلام إن قبل لو حق ولا ذا نك هذا يبقوا أرقته حتى هدو وقفصنين هدو ما دلاي وقعن وقاضي ودباي إني فرنت البكرتو لقفور مرك عقابتي اسمها أنا مرك أنا واحد شرحين وحاول جدي عقابته كفسي ما هنكاس نينك حاسكيس هدو قلموت فرق عيار والحمر عقاب كلا لو قاضى لكن كي كفسي أمام حي الكفسي وحول له حريرة مركز الزنا ولا حريرة قف هذه حق كل هين وكرباش رجح وحباك الأزمة يعني لسه عقاب وين لكن عقوبة نينك والعقابة يلا ولا بقى فوضى بناك جو كلا شرع إسلامك مو دين تاني النبي وحول لا ضرر ولا ضرر قف إسكنا في قبتدي قف كان إنها حقوق وحكاية قالت الدين تما قبته marka mawduuca oo gogoshan islaamka aad buu u daneeyay. maxaa yeelay xadiis waxaa jira nabiga calayhi salaatu wasalaam arrimaha gogosha markii laga hadlaayo waxay ku wanaagsan tahay wanaag iyo kalgacayl iyo raxmi iyo mawado. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis wuxuu ku leeyahay oo saxiixa laa yaqacna axadukum calaa imra'atihi kama taqacu albahiima. cuur ninka xaaskiis markuu u tagayo sidii xoolihii oo kale iskugu duufaan ha ugu duufina.
hadda xoolaha xoog yar isticmaalaan Soomaa markii orgiga irida ama ratiga iyo awrka iyo hashi iyo waxaas oo dhan xoog ku jiro nabi waadiid wuxuu yiri xaaskaamka uu tagaysa markaas uu bal yakun baynakum ar-rasuul waxa la rabaa muqaddimaad inay ka horeyso markaas yiri wama ar-rasuul ya rasuul markii wuxuu yiri waxa waa kalaam tayyib ah oo jacayl iyo qublatan iyo dhunkoosh iyo waxaas uu yiri balse wuxuu ku tilmaamay ciyaar ku tilmaamay laba qof ciyaaraysa ismadilis islaamka gogosh oo wuxuu leeyahay هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك marka wax leesla ciyaaray laga dhiga ninkii marka balse cuyubta oo gabdhaha ay furiin ku dalba karto ninka haduu majnuun yahay oo waalan yahay waxa kamid ah gabadha inay qaaliga dhigi karta laga furo maxaa loo yiri ninka majnuun iskaga furo marka ninka gacan ku daya xoog uu qaada nafteedu halii wax gaarsiinaya marka gabadha islaamku waa sharfay waa karaameeyay لكن حكمك أو كفصي مكتبق ما أنا قاعد ديدني حير كان سوق لافصنا هنلاقي إنه حيتسوى سيد فقه كل سنة أنا نيجي خوف إنه خوفك حد يقول دينتي أنا ما قبته بس حوق مجرى وحلها لا حوق وكفصي ينجرين ولا حوق وحولك حولها حوق لقى قاعد كرين ولا حتى ديلا واحد قاعد كرين مركا مسألة إن لقى له إسلام كأنه بني عمل كفصي ما قبل هذا أن هذا الكي أو ماله لو قاعد مركا عندها العقد هذا جابك كبحثته معناه حاجة حقها كجرة ولذلك العقد حذاك لازم يسرق هذا كأنه كفصي واسمه لا حتى لابد مثال أسبوع كان وحيت إن هذا كمثال هو كان لكريم مركا هذا فهمين دينتين ودين قبلها ونحريسنا يسا دينتين ودين أن أقولين قف إنه حوق وحلا وقاض بس قبل لي أيام وحللي نكا قد حديت مال أكتر كل عنا ذا يسو إسلام حوق يكفصي يصوّل عليه قبل حجاب الله صار ما حجابك حكمته كجت بعتها قبل مركي قاول سوق قشته وجيتك أمرت ولا حوقيا إسلامك يقول لي ما قبل حجاب قبلها جيتك ذا أسطران حوق قاسي نكون لقوا حد قد على ديديا وحل لي اختلاط الرجل يقدمك من حق لي كران ما حيل وحل ديديا ولا تخروا الزنا ما حيل الحوق وكفت الزنا كجرته قفا كوب بنانينا وحكد عليه مركي لكن هرقلبات الزنا ما يقانا مسألة عومة وكذا أنا حكمك اسمه خلاف سنة قفك إن العقاب أو إسلام تلقفر عقاب كوين محيطها إن حاس كيس لقفر وليري وما دام أد حقوقتي أما أديش أما حقوق سميس ولا قفورة عن ليري لكن حكمك أها أو زندي أها أو كرباشك إيو وكاسكو مطبق ما يكفس لما ده كاسة أول جد. مركا شيخ هدي أن سفيع عن كوفة همي هديو ننكو قبل يسحوق وحقوقات دين الإسلام كأنه تسوي ممنوع ذي لو ما بعنا ملعب بين وقصة هرتي أسوأ ولا لي معاني وجعلها وحقوقات ذكر إنه جرجوبه وحقوقاته دينتو أرنتاس ما أقول هذا الكلام أساسا أفهم. أساسا نعم. قبل ما حق هدي هلا كنا قط إلى الدعوة في مركز الدعوة حسوا قد سنة بناه. وأساس. هدي قبل سو دعوة إترا قال لي ودعوة إترا إن كان أنا حو حقيقة هذا بس الإسلام كو حو قبل ويسكت في حوقه هدي معاشرة ذي بسطه نمن محاجرة أو أهل ذي وين تي قبل وأتكي سكر مثلا قال لي هدي أنت إترا أنا يبان كو قبل جوشان وكف السقيا ولا كف السقيا. ومركز الإسلام لا ضر ولا دم وموجل قبل نبي نجارسين موجل الإسلام. أقدر حدي دينا عكرانو كأجنو. بعد حياة عجيب كه فقه أن بعد الشافعيين وقبان حنابل وقبان يعني كهدو قرن يهاي وأفكر ميسنين وسيار عبي هاي وقات كسو أوراي أفكيسة قبل أفكيسة أوراي حتى فريم قتل بكر تاي قبان بعد المذاهب. أنت سبحان الله معاشرة الزوجية أو جوجشاس وراحة وحديدة وحديبة إنك ماذا مركا إسلام كم بناه قبل حقوق لو حلوه قاضو أن أديب لي أفك أوراي وسقي قرنك حتى دبسكرتا فرين قتل بكرتا ذاتك أرمها سؤال الموجود مرك. أقدر تشرح عثمان طبعا وحجرة ضد دمراء أو مركا غاركود قال هان قربان الدان كله الله حسب هذا إن اللي يرى قبل جركي أنا إسكره نمكو متى من كره دانا أنا قرر لك أهين وحن كهلا يعني حاسكيس قبوي أو باهي إسكو قبوا وضع نول حدي أي ترى هذا جركي أنا إسكره أو أنا إن رأي لك نقطة ما أنا لا متى من كره أما نمكو سيدا سوكلي هذا markii la ismehersanayay ayaa xubnaha la isku xalaaleyay wax la kala leeyahay oo kala soocan miyaa meesha yaala soo waa wax la isla wada leeyahay laakiin u baahan in wanaag iyo sharaf iyo karaamo la isku weydiisto. نعم في سيدك الاستمتاع markii la xuquuqda labada xaas oo markii ism mehersadaan karatimayso saddex xuquuq weey xuquuqna rag gaar u leh xuquuqna dumarka gaar u leh xaqna xuquuqna waa mushtarak labadooda asla leh marka isla raaxaysiga waxay ku jirtaa xuquuqda mushtaraka
ولذلك أنا الدين أنا حكمته شال قبل الدين أبنيسي استحللتم فروجنا بكلمة الله والنبي عليه الصلاة والسلام وعليه حاسسك والواحد لا وعليه استوصوا بالنساء خير ورحاسك أقبتان خيرك قد دار ما حد عي فإنه نقول قنا على ذي آدم لقى أبور فيرت آدم وقالوا عنا لقى أبور مركب نمك وحلي خيركم للنساء وحاسن رجع وحلقة دار معه لكن قبل ما دام مسلمة إيه دين تان وحي أبنيسي عقابته آخرة كمول أنا عقابته الدنيا وحنا نقدر عقابته آخره عيل هدي اللي يري قبل هدي نين كذا أيضا عذر الأنقبين وأن جرنين وأن وحبا عذر الأنقبين هدي نين كذا يتراه كي أنا أسكله مقصينه هدي يتراه وحوي أن عقاب آخرة كوريس وملائكة العنادة سالير وإلا يصبح وكبري مركا قبل وأتكيس كرتو دين تلهتاو كو الدين تلهين ودين تأخانين وقار كواس والله يابا أما قالوا كودين هاي ودين تكفوا كذا واجر هذا عسينا كواس حكم كذا واحد أدون كله قاضي ملها لكن نينك سيدا دبا الفسخ قبلها وفسخ ضلبته لكن نينك هدي وحاس كيسة وكوايو ان وحو كربي حق وحو ليه انه اسلام كلو غورسدو اسك فرو وهذا ولو قصباي مله ادو اسو ku sabreynin asaga jaaniska gacantiisa wax ku jiraan laakiin gabadha laga hadlay hadii ninka dib ka sheegato iyadan afkeeda wax isfuri karin qaaliga inuu jaanis si karo dilkaas iyo arinta hata arimaha ka sheekeeyo kale xoogaas oo kale qaaliga xukunkeeda u qaaday laakiin lagu ma qasbi karo lama dhigi karo kufsi waa lama dhigi karo maxay kufsiga anaga taariif uu leeyahay qeexid uu leeyahay qeexideena waxay xukunkeeda maxay حكم كفسي وكد وين هاي حكم ككلا وهذا قبل ينك إسقابة ولو قاضي وشرع وقاضي. أرن أبيات مهمة يا شيخ رواجسي وحنا ما يقول لقي دوت واحد اللي وين تهاي أن كفسي أيام لما وكلا قاضي مد وحوي نن قبل وصل قبل نن بوبية ومركز شريعة أي مال صارتي أو لقيه وقعن إسلافي لقوا حتى أي جالسيسي أن سيدا نوجنا هاي هدي أي نكاك صوتنا كانوا شروطها كما رتميان لكن ولي سناس يتهي وخالد إن شاء الله سميه نعم غلط بل عقاب كل ولي بس قبل أنك لقى فرق كلام راهي بضر يماد بحوق لي ماذا مركا ولذلك وحنقول علوم وحيابها اللي يسكون فروع حكمية جنونك وعلى شذ قبل دينك هدو واشو وعلى شذ وحالير وحي حق ولاده عيوبته ونك لقى فرق كروي بعد فقهاء كلا قادم حيلهن ولا شذا مركو هوري اسو نينك قبل ما لو قيانين ولا ما لو دري مase iyadoo markuu qabo ka bacdi uu waashay labadaas waa la kala farqiyaa hadii asagoo waalan lagu qayaanay waaba la kala celishana lacagta oo dararka iyo wixii laga qaaday ehelkii la ciqaab ay markaas uu gabadha siray leen gabadha mas'aladan waxaan dhigay mas'alo muunaysi iyo raxmad iyo raaxo ku dhisan sideedaba arinta kugush libaas laga cabira oo dad gugul isla galay inay hal dhar isla xirinayo walaal gabadha wuxuu aabaheed iyo hooyada ka arkan oo ninka ka arkaya ninka sidoo kale gabadha ay ka arkaysaa walaal dadku iskaga dhow yihiin لكن حكم كذا مركي اللي يرى حكم كفسي هاي والله اللي سكجوينا إيو كاس لو متوقع كرو لكن ما بنانو نك والا وحليل قبله حل حق وحولادها إني ترى قال لي نك أنا واشي مركا نفتي ذا وبقى مركا نك والا وحكف سكر ولذلك وعرق قال هذا مركا قال كود وحلاقي شيء كو والا وكفسي قبل أو جري أو تعذر أو ته وده يعني وحكف سن ما وحمد سبيكري بس قبلها له هلا يعني لفت هذا وده يعني هذا اللي حوجنا اللي جيبين عذر كوجرو وحاسنا مر عذر وين marka cudurkan waxa kamid ah waxyaabaha walashada in la isku furi karo marka inta halkee marka gabar sharciga u baneeyay maxay tahay in la kufto hadii la yiri ninkii waanlay waa laga furaya gabdh sharciga gabdhaheena soo ilaaliyay meel lagu ilaaliyay malaha laakiin dadka raba diinta inay wax ka sheegaan oo diinta raba inay ceeb u yeelaan ayaa hadalka tiraasi u bedelaan kaan inay diinta xun tahay waxa way hadalka anaga nooma socdo dadka hadalada qiimin anaga nooma socdaane diinta u socdaan ay waxay rabaan diintana sheekhiga asaas yiri marka diinta waxa tiri diinta inay been ka sheegaan arba diinta gabadha waa karaameysay la lama qasbi kar wala la xoog karin wala waxa lagu dari karin xataa en maharkeeda ida askale karaama gabar waxa la sharfooy gabdhaha hadda gaalada markii la guursada mahar laana la isku guursada gabadhan anigu lacag laga bixino la qiimeynino la sharfin gur lama gali kartid aadiya sheekh allah ku xifdiyo daawadayaal waxaan daawanaysaan barnaamijka arrimaha bulshada sheekh Usmaan Rasuul aan ku wareysanayno waxaan jecelahay markaad video aragtaan baraha bulshada la soo dhigay inaan in yar oo hadal la soo gooyay inaan ku kadsoomin muuqaalka oo dhan aad daawataan waxaad su'aalaha ka qabtaan markaas aad dadka ku habboon weydiisaan laakiin aan la fududaanin dadka sheekhu uu sheegaya Soomaaliya ajnabi leh dad aqoon aan u lahayn ba mararka qaarkood hadalla aan wanaagsanayn faafiya oo just doonaya in waxaas ay faafiyaan
diintan ilaahay baa xifdisay meel la tuuro ma lahan diin sharaf iyo karaamo la weeye hooyada iyo gabadhana sharaftay ninka iyo qoyskana sharaftay sheekh cusmaan rasuul ku mahad celinayaa boqolkiiba boqol